golaha deegaanku hawshay diyaariyeen degmada u qabteen ay daacad ugu yihiin gurigaan joogno bilicdii ma daawateen kuwa kala daaqtayaale ma daawateen istayshankii baa dhammaade ma daawateen oo jalkii baynoo diyaarsane ma daawateen munaasabada furitaanka kala fadhiga 13aad ee golaha deegaanka ee degmada Baran ayaa saaka laga furay xarunta dawladda hoose ee degmada Baran waxaana munaasabada furitaanka kala fadhiga 13aad ee golaha deegaanka degmada Baran ka soo qayb galay mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Baran maamulka gobolka Sanaag xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Baran guurtida iyo aqoon-yahanka degmada isimada dhaqanka mas'uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda Puntland iyo xildhibaan Cabdicasiis Axmed Lahar oo kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada ee dawladda Puntland waxaana lagu soo bandhigay dhammaan adeegyada ay dawladda hoose fulisay 6 bilood ee la soo dhaafay waxaana ugu horeyntii munaasabada ka hadlay maayarka degmada Baran Axmed Maxamed Timir maanta taariikhdu tahay 26ka bisha 12aad sanadka 2021 oo ka fadhiga 13aad halkan noo furmay waxaan jiraa golaha deegaanka degmada Baran 2 sano iyo 2 bilood isbedelada maamul iyo horumarineed oo amnigu kow ka yahay runtii iyadana muddada qasoomay aan aad iyo aad runtii uga mahad celinayno marka hore dawladda Puntland madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni madaxweynaha ka yahay iyo golahiisa xukuumadda iyo golaha wakiilada horumarada jira oo kow ka ahaa jidka laamiga ah oo markii ugu horeysay aan laami dhignaa magaalada ka hirgelino shacabka qayb ka ahaa contribution ka geysteen waxa qayb ka ah oo runtii aan mar walba iyadana bulshadana runtii shacabka iyo gudida xaafadaha iyo dhammaan guud ahaanba shacabka iyana ku ammaanayna oo qayb nagala ahaayeen dhiraynta magaalada waxaa ka mid ah waxyaabo loo qabsoomay oo hadda meel wanaagsan maraya amnigana saldhig u ah jeelka magaalada Baran waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno kala fadhigii 13aad oo golaha deegaanka iyo waxqabadka ay soo bandhigeen golaha deegaanka degmada Baran iyo dawladda hoose aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynayna waxaan leeyahay kuwa golihii deegaanka oo ugu nasiibka badnaa golaha deegaanka golayaashii deegaanka ee soo maray degmada Baran waxa tihiin golihii deegaanka ugu nasiibka badnaa sababtoo ah waxa aad la kulanteen waxqabad ay qabatay dawladda Puntland oo uu garwadeen ka yahay mudane madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni waxaad la kulanteen adeegyadii bulshada oo majority-gooda la dhammaystiray oo uu ka mid yahay gurigan quruxda badan oo golaha deegaanku ama dawladaha hoose waxaa lagu talagalay in magaalooyinka waaweynka caasimadaha in ay yeeshaaniin sababta u yeelanaya waxa weeye waa inay u adeegaan bulshada ku dhaqan gobolkaas ama deegaankaas ku dhaqan maxay ugu adeegayaan dadkaas inay helaaniin xuquuqdooda asaasiga ah ee gaarka inay helaaniin maadaama ay wakiil ka yihiin bulshadoonin dawladda dhexe iyo dawladda heer federaal labadaba inay kula xisaabtamaaniin salaan kadib ruuxaantii aad iyo aad bay farxad noogu tahay inaan maanta ka soo qayb galno kala fadhiga golaha deegaanka degmada Baran kala fadhiga 13aad aad iyo aad bay waxa noogu tahay farxad aad u weyn intii ay jiday degmada hadda maamulka shaqeynaya golaha deegaanka khudbadihii uu halkan ka akhriyay gudoomiyaha degmada ahna duqa degmada ruuxaantii kala fadhiyada golayaasha deegaanku waa sharci dastuuri ah oo sanadkiiba 2 jeer ama 6 bilood mar qabsooma taas oo lagu soo bandhigo shaqooyinkii u qabsoomay golayaasha deegaanka intii u dhaxaysay labada kala fadhi sidaa daraadeed waa laga maarmaan aad bay farxad weyn u tahay inay intaan dhammaan ka soo qayb galaan qaybaha kala duwan ee bulshada laguna soo bandhigo waxqabadkii golaha deegaanka adeegyada iyo hanaanka laga sugayay marka ugu horeeya waxaan ku garab taagnahay oo aad iyo aad ugu hambalyeynaya
waxqabadka ay qabatay dowladda hoose oo soo bandhigtay oo maayirku sheegay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya. waxaan soo dhaweynaynaa kalfadhiga 13aad ee golaha deegaanka degmada Baran. waxaan uga mahadcelinaynaa waxyaabihii u soo qabsoomay inta uu hadhay waxaan leenahay ilaahay idinla garab galo. hadal badan ma yaalo. waxaan ku boorinaynaa gudaha deegaanka ama kalfadhiga 3aad in xoogga lagu saaro sidii cashuurta degmada loo qaadi lahaa. waa inaynu ugu horraysiino marka ugu horeeya nadaafadda. dib baa ka jirta nadaafadda Soomaaliya oo dhan. innagu waxaanu nahay meelaha ugu qallalan xoogaa oo webiyada iyo qoyaanka fara badan aan lahayn, marka waynu la dagaalami karnaa. waxa aynu maanta ka mahadcelinaynaa waa dad farakotirisa waxay qabteen xaqiiqan anigu xaqiiqan ka hadlaya. waxaynu naqaanaa haddaynu dadka deegaankan degannahay inaynu guri weyn dhisano oo qurxisano oo bannaanada marba dhigdhigno, laakiin ma aha mid daniinoo ku jirto mid macna ku fadhiya gurigaasu, waayo gudihiisa waxba kuma qabsan karo. amni haddaynu ku weyno waa ka cararaynaa. haddaynu waxbarasho weyno ilmaha waa waxbarasho la'aan dibjir buu noqonaya wayna ka baaba'ayaan. wixii laga hadlayay waa aragnaayo guriga haddaynu harsanayno quruxda badan baa ka mida. wixii aynu daawanay oo halka aad arkayseen baa ka mida. marka tusoo taabsideeda horta waxba badan oo laga hadla ma hadhin. sheegay iyaguna saldhiggii degmada, qaybtii booliiska, maxkamadda darajada koowaad, wadadii boolis tababaran oo kala dambayntoodii leh oo dhammaystiran. waxaasoo dhami waxay inoo sheegayaan sanad iyo bilo in intaa lagu gaadha. sanad iyo bilo in intaa lagu gaadhaa inay tahay maxay tahay inay wax weyn tahay. aad iyo aad aan ugu faraxsanahay oo ka mid yahay jidka magaalada Baran laga sameeyey. jidka Ceeldaahir oo shaqadiisii socoto inaan degdeg gelino oo weliba aan dib soo celino mashruucii hal qof iyo hal foosto. maadaama aanu idin adeegayno waxaanu jecelahay hadday degmo tahay iyo hadday gobol tahay iyo hadday tahay dowlad dhexaba inaad nala xisaabtantaan oo aadna tidhaahdaan war maxaa qabateen. golaha deegaanku muhiimad buu inoo leeyahay runtii weyn oo ugu fadhiyaa bulshada degmada. marka laga hadlayo maamulka ama heer dowlad federaal ha noqdo ama dowlad goboleed ha noqdo ama heer gobol ha noqdo ama heer degmo ha noqdo, maamulka dadka taabanaya oo dadka xiriirka la leh waa golaha deegaanka. laakiin gudoomiyaha gobolka oo kale iyo hay'adaha wasaaraduhu waxa laga yaabaa bulshada inaan xiriir toos ah la lahayn. cidda marka bulshada ay istaabanayaan oo isu dhow yihiin waa maamulka golaha deegaanka. dadka la rabo inay shaqada u badan qabtaanna waa iyaga. Yaxya Faanfaan, wararka Sahal Cable, Baran.